waxaan halqadan kaga sheekeynaynaa buug dhowaan soo baxay oo qoray Maxamed Cabdirasaaq Diiriye oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi. Buugga waxaa la dhahaa magaciisa Aramida Dahsoon. Sida aad ka garanaysaan, ciwaanku wuxuu xambaarsan yahay wuxuu ka sheekeynayaa arami ama xanuun ama dhibaato oo qofkii la nool yahay laakiin dahsoon oo aysan dadku ogeyn. waxaa sharaf iyo karaamo ay ahayd in buuggaas oo soo bixin uu soo gaaro oo aan ka mid ahaa dadkii tifatiray ama akhriyay aadna uga helay xogta uu xambaarsan yahay. Si guud Soomaalida waxaa haysta dhibaato, laakiin buugga Aramida Dahsoon wuxuu i tusay dhan cusub oo aanan ka garanaynin dadka bini'aadanka iyo Soomaalida. buugga ka hor kumaan baraarugsanayn dadka itaalka gaaban ama laga dheer yahay dhibka ay qabaan. kumaan baraarugsanayn aramida iyo mashaakilka iyo ay la nool yihiin. kumaan baraarugsanayn mushkiladda intaa leeg in intayna haysato oo inaga dhaxdeena ay ka jirto haddana aanan ku baraarugsanayn. ma waxa ah in aniga aysan dhib ugu haynin shakhsiyan, ma waxa sabab u ah in dadka ila nool hareerahayga dhow ila nool aysan ka mid ahayn, ma garanayo. laakiin runtii buugga wuxuu ahaa, waxaa jira qoraa dijiri Kafka yaa wuxuu yiri buuggu waa in uu faas ama dubo weyn madaxa kaaga dhufto oo waxyaabihii adiga kugu dhex ingegay oo dhan uu dib u soo waxeeyo. saa darteed buuggaas wuxuu markaan akhriyay waxaan dareemay inaan ahay qof ka duwan qofkii hore, inaan ahay qof fahmay dhibaato dad badan oo inaga naga mid ah oo Soomaaliyeed oo walaalaheena iyo adduunkaba haysata. buugga Aramida Dahsoon Maxamed wuxuu ku soo ururiyay dhibaatada haysta dadka gaagaaban si guud adduunka, si gaar ahaan Soomaalida. kama sheekeynayo buug walba wuxuu leeyahay laba dhinac oo laga fiirin karo: qiimaha fanniga iyo quruxda iyo qaab qoraalka iyo sheekada uu buug u qoran yahay iyo qaabka fikirka uu xambaarsan yahay. buuggu inuu yahay buug si qurux badan u qoran oo waxaa dhici karta uusan wax fikir iyo aragti xambaarsaneen. waxaa dhici karta inuu aragtiya xambaarsan yahay qurux badan laakiin uu si fiican u qornayn. waxaa dhacda in uu si fiican u qornayn aragtina xambaarsaneen. waxaa in yar dhacda inuu si fiican u qoran yahay aragti fiican xambaarsan yahay. marka buugga Maxamed oo aan aaminsan inuu yahay buug aad si fiican u qoran, kama sheekeyn doono aragtida fanniga uu xambaarsan yahay. waxaan ka sheekeynayaa fikir ahaan waxa uu xambaarsan yahay buuggaas. dadka gaagaaban laga itaalka dheer yahay ama dhulka u dhow waxaa doonta dheh, waa dad aqli ahaan iyo aragti ahaan inagoo kale ah, dadka dheer oo kale ah. dadka gaaban ee ka sheekeynaya ma aha qofka, waa dadka la cilinka. waa dadkan ka sheekeynayo aadka u gaaban, waa dad la nool mushkiladda. marka waxaan ka soo qaadanayaa 3 dhinac baan ka soo qaadanayaa. mid waa dhanka nafsiga ah. qofkan cilinka ah ee Ilaahay sidaa u abuuray, waxaa la sidaba waxyaabaha la isweydiiyay waxaa ka mid ah ee qofka lagu xisaabin karo wax uu asagu doortay. laakiin waxyaabaha qofku uusan dooranin laguma xisaabin karo: dherer iyo muuqaal, inuu buuran yahay, inuu dhuuban yahay, inuu gaaban yahay, inuu dheer yahay, inuu dadku ka dhashay, diinta uu haysto, midabku uu yahay. waxaasoo dhan wax maaha aniga aan doortay, saa darteed laguma xisaabin karo ama la ima weydiin karo. laakiin maxaa la weydiin karaa? waxaa la weydiin karaa aragtida iyo mabaadida iyo qaab dhaqanka aan u noolaha la weydiin karaa. marka aad iskuul ka dhigan weydo, ee aad ka shaqaysan weydo, ee aad meel ka mari weydo, ee dumarku ku caayaan, carruurta ku dhagax tuuraan, ragguna kugu dhaga hadlaan, marka qaab uu Ilaahay ku abuuray adiga aad ku weydo xaq aad lahayd, xuquuq aad lahayd, ixtiraam aad lahayd, karaamo aad lahayd, qaab xanuunka nafta ay la nool yihiin dadkaas waa wax aad iyo aad runtii aan ii xanuujiyey, ii gubay, in bini'aadamnimadeedana dib inaan oga fikiro dib iigu celiyey. qof walaalka ah oo waxba dheerayn oo kaliya wax walba ku waayaya inuu yahay qof cilina oo Ilaahay u soo abuuray. saa darteed qaab nafsiyeedka ay mashaakilka nafsiga ay la nool yihiin waa wax aad iyo aad u badan. saa darteed baa badankooda ama in badan oo iyaga ka mid ah waxay ka ururaan guryaha, wax ma bartaan, waxaana ma shaqaystaan, guryahana kama soo baxaan, iyaga oo ka baqaya maanta markay banaanka maraan ay suuqa aadaan ama meel aadaan dhaga hadalka iyo xumaatada iyo mashaakilka lagu soo dhihi doono, dhibku u geysan doono, ka baqaya iyo guryahooda fadhiyaan. dhankan waa dhanka nafsiga ah. waxaa tagtaa qofkii uu soo dadaalay, wuu rafaaday, waa la soo caayay, waa la soo shiiday, waa la soo xumaateeyay, waa lagu dhaga hadlay, waa la midabta kooray, dhimale wuu dadaalay, wuu halgamay, waxa uu bartay. markuu wax bartay, aniga oo dheer iyo asagoo cilina waxaan nahay iskuul, isku jaamacad, iska aqoon baan nahay. shaqaan tagnay, asaga kaliya wuxuu shaqo ku waayay inuu yahay qof cilin ah. lama weydiinayo aqoontiisa, lama weydiinayo kartidiisa, lama weydiinayo dadnimadiisa, lama weydiinayo hal abuurkiisa, lama weydiinayo hoggaanimadiisa, lama weydiinayo يعني قاب وح وكسو كرنكر ماش وشقة وتجي كليه وحشقة كوينية إنه يهاي قف علنا أظن مركا حنون نفسي لصون ولا مركا
aad dabeec waxay aadi ilaahay ku abuuray aad ku weydo qaab shaqo oo aad ku noolaan weydo xanuun badan bay leedahay markii la tago baadiyaha lagu noolaa qofka cilinka ahaa qof dhaxal lama aha qof xoolo la siin kara ma aha gaar ahaan geela waxaa la siin karaa nin xoog leh nin shubi kara iyo nin dhacsan kara midna ma aha saa darteed geela waxba kuma laha sida dumarkii aan loo siin jirin baa iyagana aan loo siinaynin yani dhibaatada uu ku soo ururiyay maxamed buugaas hadday noqoto miyi iyo hadday noqoto magaalo waa mid u baahan in buugan in qof kasta oo Soomaali akhriyo qof kasta oo Soomaali ana uu dareemo dhibka ay dad kale nool yihiin hal saac oo noloshaada kamid oo buug akhriis ama 2 saacadood haddaad isdhigto booska uu maxamed iyo dadka la midka ay joogaan waxaad wax badan isaga bedela aragtidaada waxaa kamid aragtida saddexaad in kusoo gabagabeynaa haduu ilaahay yiraahdo aragtida guurka ninkii uu soo halgamay waxba bartay shaqo helay guurkii gayaankii waa mid ugu adag ninkii wuxuu joogaa inuu guursan lahaa mana hayo qof uu guursan yani haddii uu raadiyo inuu helo qof sidiisoo kale cilin u ah way yar tahay ama sideedoo kale gabadha cilin u ah way yar tahay laakiin qof wuxuu rabaa inuu guursado aniga maanta markaan guursanayo waxaan haystaa ikhtiyaar option badan baan haystaa hebla tu gaaban tu dheer tu buuran tu yani madow tu cas waxaan doonaa guursan karaa qofkii ma haysto waxaa laga yaabaa ninkii wax bartay shaqaysta inay sanado badan ku qaadato inuu qofku rabo guursado hadduu qofkii wuxuu ka sheekeynaya marka sheekooyin badan oo wuxuu ka sheekeynayaa dad saas ahaayo gabdha la hadleen oo ay soo dhaweeyeen oo ay waqti la qaateen kadib markay ogaadeen inay gaaban yihiin ka tegey wuxuu soo qaadanayaa qof marka hadalkiisa waxa laga yaabaa codku inuu isbedelaa laga yaabaa oo codka qofka dhamayska tiran xagga itaal ahaan uu ku hadlayo qofka codku hadlay inay kala duwan yihiin baa laga yaabaa in waxa dhici karta codka lagu caaya yaa laga yaabaa guurkii waxay kala kulmaan mushkilo haddiiba ay dhacdo lacalla in ay gabar tahay gabadha cilinada uu qof kale oo dheer guursado ama ninka cilinka uu gabadh dheer guursado waxaysan dadkii ka suuragelaynin oo ka noolaanaynin bulshadii iyo gabadha reerkoodii buugaas wuxuu noo soo gudbinayaa mashaakilka dadka cilinka haysta dadka gagaaban haysta wuxuu soo gudbinayaa dalka uu ku nool yahay oo Kenya wuxuu ka soo gudbinayaa Canada wuxuu ka soo gudbinayaa Australia wuxuu ka qorayaa Mareykan wuxuu ka qorayaa adduunka oo dhan aragtidaas iyo dadka hogaamiya wuxuu noo soo sheegayaa dad cilin ah oo adduunka horumar ka gaaray wuxuu noo soo sheegayaa caqabadaha haysta wuxuu noo soo gudbinayaa sida maanta dadka Soomaalida oo ay u takooraan wuxuu noo soo sheegayaa diiniyan inaga dadka islaamku inay diin ahaan lagu kala sareeyo cibaadada Ilaahay laakiin aan lagu kala sareeyo muuqaalkaaga iyo midabkaaga adigoo Soomaali ah dad waxay ku dhaleelayaan tahay qof madow waxa qaar ku dhaleelayaan tahay qof sabool ah adiga sidaba isu si kala qaybisaa marka runtii buugaas aad iyo aad buu aniga ii saameeyay markii hore asagoo soo bixin aan akhrinayay dadkii maaragtay aragtidooda ka dhiibanaya aan ku jiray iyo markii dambe oo soo baxay oo aan akhriyay labadaba wuxuu igu dhaliyay saameyn qofka kaliya akhriya muqaddamada buuga intaan la gaarin shanta cutub intaan la gaarin qofka ka akhriya hordhaca buuga ayaa wuxuu dareemi karaa dhibaatada maxamed iyo dadka la midka ay ku nool yihiin waxaan dhihi lahaa waa buug mudan in la akhriyo waa buug mudan inuu dadka Soomaalida dhan gaaro waa buug mudan in intaan akhrino oo na anfaco oo aan dhaqankeena aan wax ka bedelno intaasaan ku soo koobaynaa xalqadeeni maanta golaha buugaagta inta aan mar kale kulmayno waxaan iga tagayaa amaana Allah